shirkadda Asli Mayd oo ka ganacsata wax soo saarka xabkaha iyo faleenka ayaa deeq xoolo nool ku wareejisay jeelka weyn ee degmada Ceelaf ee gobolkaasi Sanaag iyo waliba ciidanka birmidka nabad ilaalinta u jooga degmadaasi Ceelaf weyn waxana goobjoog ka ahaa maamulka degmada Ceelaf cuqaal waxgarad iyo mas'uuliyiinta ugu sareysa shirkaddan Asli Mayd oo ku sugan degmadaasi Ceelaf weyn ugu horeyn Maxamed Ismaaciil Axmed Nadiif xogayaha guud ee shirkadda Asli Mayd iyo waliba afayeenka shirkaddaasi Cabdi Casiis Jalaw ayaa faahfaahiyay deeqdan ay ku wareejiyeen ciidanka degmada Ceelaf weyn anigoo ah Maxamed Ismaaciil Axmed oo ka wakiila shirkadda Asli Mayd ahna xogayaha guud ee shirkadda Asli Mayd halkan maanta waxaan ku wareejinaynaa deeq xoolo ah oo aan ku talagalay ciidamada birmadka Somaliland oo qayb ka shaqeeya iyo jeelka oo ka mid ah inay qayb ka noqoto labadii taliyaha jeelka iyo taliyaha birmadka degmada Ceelaf oo mar kasta waxaan jecelahay inaan ku qayb qaato kiisa kasta waxaan jecelahay bulshada shirkadda sida uu sheegay toban neef oo ari ah halka jooga oo aan ku ciidamada birmadka ee halka jooga nabad ilaalinta iyo jeelka waa markii uu horeysay shirkaddu ay wax ka geysato ama ciidamada ay gacan ku siiso amniga iyo nabadgelyada degmada Ceelaf hore waxa uu jirtay iyadoo sidoo kale ciidamada nabad ilaalinta Ceelaf ay geel aan ugu wareejinay mar walbana waxaan taaganahay nabadda iyo horumar taliyaha xabsiga weyn ee degmadaasi Ceelaf iyo waliba taliyaha ciidanka birmadka ee nabad ilaalinta u jooga degmadaasi Ceelaf geestooda waxay u mahad celiyeen shirkaddan Asli Mayd shirkadda Asli Mayd ee gobolka Sanaag iyo xogayaheega waanu ka guddoonay tirada ah ay ku wareejiyeen ciidanka birmadka shirkadda Asli Mayd waan ka wareegay markaan fariga waana u mahadnaqaynaa maadaama ciidankii ay garteen in xoolo geeyaan inta kale waxaan kula talinayaa in iyaguna ciidankooda maayirka degmada Ceelaf iyo waliba maayir ku-xigeenka degmadaasi cuqaal ayaa iyana dhankooda kula dardaarmay in lagu deedo shirkaddan Asli Mayd aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa shirkadda Asli Mayd oo horena goobjoog uga ahayn deeqa hore halkan ugu bixisay iyo waxtar hore waxay hore uga qayb qaadatay waxay xoolaha guddoonsiyeen waxtar badan oo aan hadda halkan lagu soo koobi karin bay shirkaddu ka qayb qaadatay degmada Ceelaf waxaan leenahay xoolahan de way sugaysaa hadda badan ka sugaysaa degmadu xaq baa leeyihiin oo deegaankiini oo dalkiini wax qabadka iyo horumarku oo shirkadda dambe u tahay deegaanka iyo dadka ay ka faa'iideysan dambe u tahay waxaan leenahay aad ugu mahadsantihiin shirkadda Asli Mayd oo keentay deeqatan birmadka u jooga degmada Ceelaf howlgalka u jooga ciidan cusub oo dhawaan u iibinayeen ciidankani oo ciidankii hore lagu soo bedelay iyo ciidanka asluubta oo iyaguna mar walba ilaaliyaan dadka xabsiga la keeno ee xabsiga lagu hayo oo ay ka mid yihiin baahiyaha aasaasiga ah ee deegaanka ka jira in qofkii dambi gala la hayo amnigiisa la hayo oo la ilaaliyo aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin shirkadda Asli Mayd waxa kale oo deeq aad iyo aad qurux badan waayo markii ganacsatada iyo dadka waxgarad hantiilayaasha ay soo xusaan dadkooda hawsha dheeraadka u haya waxaan aad iyo aad loogu mahadnaqaa ganacsatada kale iyo shirkadaha kalena waa laga sugayaa inayna ciidamada qaranka ee howlaha dheeraadka u jooga ee hadii jeeyaga ku jira nabadan degmada Ceelaf inay xusaan oo ilaaliyaan aad baan uga rajaynaynaa waxaan kaloo mahadnaqaynaa shirkadda Asli Mayd ee garatay wax gashada ciidanka qaranka fanigan booliska iyo ka asluubta aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin shirkadaha kalena waxaan leenahay deedina ku dayda in wax la taro ciidamada qaranka arrinta dhiirada anigoo hadlaya afka xubaasha degmada Ceelaf waa ku mahadsantahay Asli Mayd ومحمد سوت التلفزيون كقرن كسوماليلاند Ceelaf